ugu yaraan 41 qof ayaa ku dhintay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay kaniisad ku taalla magaalada Giza oo u dhow caasimadda dalka Masar ee Qaahira. warbixin hordhaca oo laga helay booliska waddankaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay in dhacdadani ay sabab u ahayd dab xooggan oo ay korontadu sababtay. waxaan arkay dad badan oo ka soo boodaya dabaqa sare oo soo daadanaya, dhammaantood way dhinteen. dad badan baa dhintay. waxaa ku jiray carruur aanan weli aqoonsan in waalidkooda ku jiraan iyo in kale. ilawareedyo ammaanka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in xilliga uu dabku kacay ay kaniisadda ku cibaadaysanayeen dad tiradoodu ay ka badan tahay 5,000 oo qof. 15 ka mid ah gawaarida dabdamiska ayaa goobta loo diray si ay dabka u damiyaan, iyada oo gaadiidka gurmadka degdega ah ay qaadeen dhaawacyada. waxaan ka aragnay dhinaca hoose ee dabku waxa uu ahaa mid sii weynaanaya. dadkuna waxay rabeen in dabaqyada ay ka soo daataan. gudaha ayaan soo gallay si aan meydadkaas uga soo bixinno. madaxweynaha waddankaasi Cabdifataax al-Siisi ayaa waxa uu sheegay in dhacdada tan uu ka murugaysan yahay. waxa uu sheegay in ay bilaabeen baadhitaano lagu xaqiijinayo waxyaabaha rasmiga ah ee dabkani u ka kacay. ciidamada dabdamiska ayaa markii dambe waxa ay sheegeen in dabkani la xakameeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa waxa ay sheegtay in warbixinta ay heleen ay tilmaamayso in dabku uu kacay 9 subaxnimo ee xilliga maxalliga ah, waxaana ay sheegeen in ay ogaadeen in dabku uu ka kacay qaboojiyaha dabaqa labaad ee dhismaha. xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Masar Xamda al-Siwaay ayaa waxa ay amar ku bixisay in baadhitaano lagu sameeyo. koox dacwad oogayaal ah ayaana loo diray kaniisadda. Masar ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay ka dhacay dhowr dhacdo oo ku saabsan dab ka kacay waddankaasi oo ay dad badan ku dhinteen. bishii Maarch ee sanadkii 2021 ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay warshad dharka samaysa oo ku taalla duleedka bari ee magaalada Qaahira.